maxadka Sheekh Mahdi ee magaalada Boorama ayaa software ay ku shaqeeyaan dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar guddoonsiinta software-kaasi ayaa waxa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Awdal Aadan Faarax Ilka Case iyo maamulka ku-xigeenka dugsiga Sheekh Cali Nuux Faarax Warsame iyo macallimiinta dugsigaasi iyo maamulka maxadka Sheekh Mahdi Cabdi Xakiin Axmed Xirsi iyo ardayda dugsiga sare Sheekh Cali Jawhar waxaana loogu talagalay in macluumaadka dugsiga Sheekh Cali Jawhar in lagu ururiyo isla markaasina kaydka documentary-ga dugsiga lagu xafido waxaana munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Awdal Aadan Faarax Ilka Case wuxuuna sheegay inuu faa'iido badan u leeyahay dugsigaas laakiin walaalaheyn maanta hadalkii ku bilaabeen baan ku qancay oo ahaa annagu 3 markii iskuulka la dhisay maanaan joogin maadaama waaga aan joogo bedel maanta oo anagu xilligii gaadhay ilaahay taale kaanba waaga ka shaqeynayay wixii ka weyn maadaama waaga joogo bedel maanta anagu sayid ku darsanayna yaani qayb fiican oo qayb libaax ah marka waxaan maamulka iyo macallimiinta dugsiga Sheekh Cali Jawhar ee ku dardaaraya barnaamijka software-ka ay noo dhiibeen iyo database-kaas cidii ku shaqeyn lahayd iyo sidii loogu shaqeyn lahaa inay iyaguna ay u diyaarsadaan oo ay u diyaar garoobaan waxa isaguna halkaasi ka hadlay injineer Cabdullaahi Cilmi Good oo kamid ah macallimiinta dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar midna waxaan leeyahay ardayda iyo ganacsada iyo ayaga noo fadhiya macallin barnaamijkan ma aha iskuul kaliya kuma saabsana waxa loo sameyn karaa maqaarleyda waxa loo sameyn karaa bookshops-ka oo ugu fadlan fadhiyo macallin ku ilaashan karo buugtiisa isaga laftiisa sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka Sheekh Mahdi waxaana uu sheegay software-kan ay ugu talagaleen maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Sheekh Cali Jawhar inay wax uga faa'iideystaan dhinaca kaydinta documentary-ga dugsiga Sheekh Cali Jawhar waana dugsigii sare ee ugu horeeyay la guddoonsiiyay software-ka ay ku shaqeeyaan waa hodan caafi shabakada wararka ee Maal News magaalada Boorama